shandad lacag lagu soo qaado iyo dawladda la dhaxmariyo Soomaaliland kuma burburayso maxaad ka wadaafeen shandad lacag lagu soo qaado Soomaaliland ku burburmayso waxa inoogu waa ahdaafta qadar weey annagu maanta waxaanu la hadlaynaa waa qadar dunidana waxaanu u sheegaynaa inay cadow Soomaaliland tahay 7 bilood oo waxa weeyaan qarankan hubati la'aan dalku gali maayo maalin kastana madaxweyne ciddu la kulmaa war kala soo saari mayso dunida way iswaafaqaan labada isqaabilaa warka ay soo saaraan maxaa kala duway warkeen oo wasiirka arrimaha dibadda qadar ahna ra'iisul wasaarihi uu leeyahay waxa la kulmay nin gobol Soomaaliya kamid madaxweyne ka ah gobol Soomaaliya madaxweyne kamid jamhuuriyadda Soomaaliland buu madaxweyne ka yahay ummadana dooratay ummadana u dhaartay ummadana qarankan ilaashanaysa marka madaxda carabtu ay qaabilayso madaxweynayaal labiskooga ugu sareeya waa khamiis iyo mashlax baa laydhaa oo laga dul xidho khamiiska ama jubbad sida Soomaalidu u taqaan ninkan wuxuu qaabilay isagoo ciimaamadii khamiisita waa mustawa hoose macaali bay isticmaaleen isagana waxa la yiraahdaa ra'iis waa kelmad u dhiganta safiiro kale dal ka wakiilo kale haddana halkan muxuu ku sheegay muxuu qaabilay buu yiri ra'iisi iqliimi ardi Soomaal alladhi yazuru biladi xaaliyan isagoo ziyaaro ku jooga waqtigan la joogo ama booqasho ku jooga dalka Qatar man la oran karin xisbi ahaan oo degdegisan mar labaad waxaad ka degdegisan kulanka madaxweynaha iyo maxsuulka dambe soo bixi doona madaxweynaha maanta jooga haday dhab ka tahay war saxaafadeedka af Soomaaliga dhowrka sadar ay ku qoranay Xuseen Deyro jooga Hargeysa inoo soo saaray haday dhab ka tahay waxa uu aaminsan yahay war saxaafadeedka Soomaaliland ka soo baxay ku qoran caaw Twitterkiisa ku qoran waa madaxweyne inuu qarankan jiro inuu qarannimada Soomaaliland kala hadlay inaan qarannimada Soomaaliland lama taabtaan tahay dunida caawa Cabdiraxmaan kula hadlo ha u sheego kuna wacan daawadayaal waxa barbarkay ku sugan afayeenka xisbiga mucaaradka ee kulmiye Cabdinaasir Xasan Buuni oo ku wareysan doono safarka madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi ku joogo dalka Qatar xisbi ahaan sidoo warkaan afayeen soo dhow marka hore aad iyo aad bad u mahadsan tahay guuleed sayid iyo telefishinka weyn ee Horyaal TV aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa soo dhawaada madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi waxa uu safar ku tagay dalka Qatar maanta kulan dhacay waxa madaxweynaha qaabilay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Qatar kulankaas xisbi ahaan saad aragtaan idinku waa runtaayo 3 cisho safar qaato madaxweynaha jamhuuriyadda ku joogay dalka Qatar oo uu safar siday madaxtooyadu marka horeba war saxaafadeed inagula wadaagtay martiqaad rasmi ah oo ka helay dawladda Qatar 3 cisho maqnaana inuu nabad tagay iyo in kale iyo wuxuu ku sugnaa iyo inuu dalkii gaaray warkamaynaan hayn oo xafiiskiisu inooma sheegin ummadana lama wadaagin sida caadigaana madaxweyne markuu baxo inta adcaful iimaan ugu yari waxa weeye in la yidhaa madaxweynuhu dalkii uu tagayay uu nabad tagay idaacadda qarankana kamaynaan maqal war saxaafadeed madaxtooyada ka soo baxayna kumaynaan arag cid kaloo halka dadkii la socday oo hadlay oo warbaahinta la joogaan iyo teena la xiriirayna maynaan arag wana dhaqano cusub oo runtii aad iyo aad walaac u muujinaya dadka waxa hore ee loo sheegaya marka la baxayo iyo waxa soo baxayay aad iyo aad buu kala duwan yahay maantana kulanka dhacay iyaga intay noo sheegeen waxa ka duwan oo ka weyn waxa wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Qatar soo saartay oo ah in dalkana ay ku tahay qaranjab wixii madaxweynaha loo dhaariyayna ka duwan tamaanta aanu ka hadlaynaa waxa weeye war saxaafadeedka ay soo saartay ee dunida la wadaagtay dawladda Qatar ayaan rabaa halkan dadka inaan kula wadaago استقبل معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاثم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية اليوم السعادة عبد الرحمن محمد عبد الله عرو رئيس إقليم أرض الصومال الذي يزور بلاد حاليا جرى خلال المقابلة التبادل نظر حول المستجدات الأوضاع في الصومال وأهمية الدعم الوجود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار فيها وسبل تعزيز التوصل وبناء الثقة بين المختلف الأطراف وأكد معالي رئيس الوزراء الخارجية خلال مقابلة إيمان دولة قطر بالمستقبل الصومال يمنى عبر الافتتاح وتواصل البناء بين جميع المكونات مما يضمن الاحترام سيادة الجمهورية الصومال الفدرالية ووحدتها الوطنية قرار ومعناه نقول رئيس الوزراء dalka Qatar waxa uu qaabilay
madaxweynaha gobol ka mida Soomaaliya iqliim bay isticmaaleen ma isticmaalin jamhuuriya waxay isticmaaleen iqliim marka waxa waa gobol ka mid ah Soomaaliya madaxweynaheega gobol ka mid ah Soomaaliya madaxweynaheega ayaa saaka uu qaabilay ra'iisul wasaaraha dalka Qatar ahna wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda qoraalkooda masaasi ku cadeeyeen meel walbana waa ka maanta yaala marka annagu waxaan la hadlaynaa waa dawladda Qatar waxaanu leenahay qaranka Somaliland waa qaran xornimada isagu hore ka qaatay Soomaaliya oo madax banaanida iyo qarannimada iyo waxa weeyaan isticmaalkii isagu qaran madax banaan ah jamhuuriyadda Somalilandna ay Soomaaliya kula biirtay iyadoo qaran dhisana iyada oo qarankeegii markii wixii la isku afgaran waayeen qarannimadeedii la soo noqotay 34 sano kadibna ku naaloonaysa qarannimo dunidana kula macaamilaysay cadaawadda qadarna ay taagnayd 34 sanaba oo qaranka jamhuuriyadda Somaliland ay dhan ka ahayd madaxweyne kasto jamhuuriyadda soo mara oo 5 madaxweyne oo madaxweynaha maanta jooga 6 ku yaayna uu ka diidi jiray qaranka Somaliland cadaawadda u hayaan darteed inay lana hadlaan cid ka mid inay noo timaado cid inaga mid inay u tagto ayaa maanta waxay heleen fursad waxaan daba u sheegaynaa annagu shacbigaanu la hadlaynaa shacbiga waxaanu leenahay foojignaada indhaha kor u qaada aaladaha isticmaashina dunidu maanta sida sahalka ay kula hadasho Twitterka iyo waxa weeyaan social mediaha idikoo wax bartay Somaliland hore waxa u difaacay tiro kooban oo rajiimkii dabaabadaha watay ee quwadaha isbidayay hore Somaliland uga xoreeyay idikoo maanta dawladda idikoo 34 sano jiray idikoo maanta wax bartay idikoo maanta dunidu waxa ay ku wada xidhiidho af walba yaqaano ilaahay qarankiini makansiiyay maanta qarankiina ku difaaca qalin dawladda Qatar caawa iyo wixii ka dambeeya iyo maanta u sheega dunida inaad tihiin qaran jira dawladda Qatarna ay dunida fasaad iyo ay kula dhex jirto waxa weeyaan inay dawlad kaste oo maanta gobolka kamida ay qoridaba ay la wareegayso kiina maanta waxa weeyaan maamulka maanta Somaliland taladiisi qabtay ay inoo sahleen inay cadow afkay noo geliyaan waxaana la soo saaray iyagoo halka jooga madaxweynaha maanta jooga haday dhab ka tahay war saxaafadeedka af Soomaaliga dhowrka sadar ay ku qoranay Xuseen Deyro jooga Hargeysa inoo soo saaray haday dhab ka tahay waxa uu aaminsan yahay war saxaafadeedka Somaliland ka soo baxay ku qoran caaw Twitterkiisa ku qoran waa madaxweyne inuu qarankani jiro inuu qarannimada Somaliland kala hadlay inaan qarannimada Somaliland lama taabtaan tahay dunida caaw Cabdiraxmaan oo kula hadlo ha u sheego intuu halka joogana waxa weeyaan islaamka ugu waaweyn buu maanta Qatar la joogay ha u sheega qarankan wuxuu ka aaminsan yahay hadayna waxa maanta Qatar ay soo saartay aan ku wada soconin dunida ha u sheego waa qarankii lagu dhaariyay kitaabka kula socdaad leedihiin miya waxaanu leenahay haduuna kula soconin waa inuu ka hadlaa waxay soo saareen inuu ay qaabileen madaxweyne gobol Somaliland ka mid waxa la arkay madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi in meeqaam martabadiisa rasuul maxaa loogu qaabilay dalka Qatar gaar ahaan uu qaabilay ra'iisul wasaarihii Qatar hadii ay ula macaamilayaan ama ay u arkaan inay Somaliland tahay qayb ka mid ah Soomaaliya martiqaad ka mihilayd waxaan ku sheegayaa martiqaad waxa lama yiraahdo ninkani wuxuu isticmaalay markii isaga la qorayay dadku inay aad bay dadkeena wuxuu yaqaanaay استقبل معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم معالي بالاستعمال هل كيستقل الاستعمال از كلمة سعادة حتى لما استعماله فخامة الرئيس لما استعماله والله ما إري أوكل حقوق ذهن محيزين بلدك وفسر وحوية سعادة وامح سعادة وحلو استعمالها صفيرك سعادة صفير ولبا ينقو وين نسكبد لأنه سعادة الوزير با وزير كلا ما معالي الوزير وهي كلمة وقع علص وزير اللغة العربية الله استعمالها كلمة الله استعماله مدحوينها أنا وفخامة الرئيس يسوي إمك وحي استعمال استقبل معالي الشيخ بن محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء معالي باستعمالين استقنا وحل الرئيس وكلمة أردقانتا سفيرو كلي دلو كوكيلو كلي حدنا هل كان محو كشاقي محو قابلي بيقولي رئيس إقليم أرض الصومال الذي يزور بلادي حاليا isagoo ziyaaro ku jooga waqtigan la joogo ama booqasho ku jooga dalka Qatar marka waxa weeyaan waxa lama yiraahdo mustawa iyo lama yiraahdo midba kale in sheegayo dadka Soomaaliland oo sheegaya dunida marka madaxda carabtu ay qaabilayso madaxweynayaal labiskooga ugu sareeya waa khamiis iyo mashlax baa la yiraahdo oo laga dul xidho khamiiska
ama jubbad sida Soomaalidu u taqaano ninkan wuxuu qaabilay isagoo cimaamadii khamiisita waa mustawa hoose marka waxa weeyaan wuxuu ku qaabilay de qof caadiya ayuu arkayay oo waxaana ka muuqata war saxaafadeedkiisa inaga haddaba waxay nala gudboon qarankan meel adag buu ku socdaa maalin walba ceebba 7 bilood safarkii madaxweynuhu gala ka soo baxaysa wax la qaadan karana maaha qarankan uu u dhaartay madaxweyne iska ilaali wixii dambe tan imika inagu dhacdayna halkaas aad joogtaay nimanka u sheeg inaad tahay waxa weeyaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wax la iraado isku furan dambe iyo waliba halkan u dambeysay waxa ku jirta waxay xoojinayaan midnimada Soomaaliya iyo xiriirkooga waxa soo dhanba meesha ku qoran iyo dawladda qadar u taaganta iyo isku furanka ba ku qoran wax isku furmaya garan mayno marka waxaan u leenahay madaxweynaha qoraalka ra'iisul wasaaraha ee wasaaradda arrimaha dibadda qadar ka soo baxay waa war culus weey lamana aamini karo war saxaafadeedka afayeenkaagu Hargeysa jooga ummadda u soo saaray ninaan wafdigaba la socon oo Hargeysa jooga war saxaafadeedu soo saaray lama rumaysanayo xisbiyan markaa mowqifkiinu muxuu yahay mowqifkaygu waxa weey shacbigu inay qarannimada inuu istaagaan ilaashadaan tacab badan baa galay 7 bilood oo waxa weeyaan qarankan hubatila'aan dalku gali maayo maalin kastana madaxweynuhu ciduu la kulmaa war kala soo saari mayso dunida way iswaafaqaan labada isqaabilaa warka ay soo saaraan maxaa kala duway warkeen oo wasiirka arrimaha dibadda qadar ahna ra'iisul wasaarihi uu leeyahay waxa la kulmay nin gobol Soomaaliya kamid ah madaxweyne ka ah gobol Soomaaliya madaxweyne kamid ah jamhuuriyadda Soomaaliland buu madaxweyne ka yahay ummadana dooratay ummadana u dhaartay ummadana qarankan ilaashanaysa afayeenay xisbigiina kulmiye waxa uu hore uga hadlay safarkii madaxweynaha ee uu ku tagay dalka Kenya kaasoo sheegteen in madaxweynaha Allah musta'an laga diiday in Kenya ay Soomaaliland ka furto safaarad waxa la arkay madaxweynuhu markii dambe safaaradii Kenya furay madaxweynihii Kenya qaabilay man la oran karin xisbi ahaan oo degdegisan mar labaad waxaad ka degdegisan kulanka madaxweynaha iyo maxsuulka dambe soo bixi doona Kenya waxa laga furay safaarad xukuumaddeedii ay karaysay weey waana kiro xaafad bay ka guurtay xaafadda way u guurtay xataa mustawaynu madaxweynaha furaa qalad ahayd in loogu yeedhaa qalad ahayd waa ceeb madaxweyne xafiis ma furo maanta meesha kaliyaata ee dawladaha jaarka aynu ku leenahay xafiis rasmiya oo inagu aan leenahay oo dhulka ayna siisay waa dawladda Itoobiya uga mahadnaqayno madaxweyne Muuse ana dhisay imka waa dhamaatay xafiiskii dhulkana Itoobiya ayna siisay wana meesha kaliyaata hanti qaran aynu ku leenahay way takiiniyana waa kiro aqaladii laga saaro meel kale u guurto safaarad lama idhaado xadhiga laga jarayo alaabtaadu baad guranaysaa aqalka kale u guuraysa waa ceeb bay nagu ahayd marka ceeb baa soo baxaysa safar ceebeediga fara badan baa soo baxay war ummadda Soomaaliland kor indhaha u qaada Soomaaliland tacab badan baa ummadda ka galay qarankan lagu wadi maayo iska baxa oo cadawga Soomaaliland maalin walba nagu farxi maayo inta imka wasaaradda khaarijiga ee qadar maanta ay soo saartay cadawgeena oo dhan baa faraxsan wana nasiib darro iyayna gaarsi de hoggaankeena ayna gaarsi afayene safarkan madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliland ka socda uu ku tago dalka qadar maxay ka dhigan tahay xilliganna maxaa ku soo beegaa isleedin waa aad iyo aad waa su'aal wanaagsan oo runtii u baahan in ummadda loo iftiimiyo horta qadar sida qoraalkayga ay ku sheegtay waa cadow Soomaaliland waxay aqoonsan tahay wax la dhaw wahdatu Soomaal midnimadii Soomaaliya Soomaaliland xabiibu maaha waxa ay tahay maxaa xilligan ku soo beegay waa su'aal aad wanaagsan weey waxa ku soo beegay qadar waxay ogaatay in jamhuuriyadda Soomaaliland la ictiraafayo oo xisbiga kulmiye xukuumadii madaxweyne Muuse Biixi ay soo gaarsiisay dawladda Mareykanka iyo Ingiriisku ka mid yahay in qarankan taabagalay indhaha laga qarsan karin ee la aqoonsado ififaalooyin iyo waxa soo socday arrimo miiska yaala waana ta keentay maanta qadar inay dunida tusto inay yiraahdaan iyagii baaba wada hadlaya oo midnimada kala hadalay oo ku kalsoon ee maxaa laga ictiraafaya waa message loo diray dawladaha waaweyn ee Mareykanka iyo Ingiriiska wana nasiib darro runtii weyn waxyaalaadka soo baxayna soo gaadhayna waxa kamid ah inuu waxa weeyaa dawladda qadar leedahay Turkiga iskugu taga Soomaaliya wada hadla lacagaha ugu badan iyo waxa ugu badan annaga ku bixinayna balse dawladda qadar hadafkeedu waxa weeye inuu midho dhalo waxa weeyaa wax la yiraahdo midnimada qarankani de horay isaga uga dagaalamay dad baa u dhintay u naafoobay agoon u noqday maantana laga yahay lagu iloobay in Soomaaliland wixii loo dagaalamayay ee qaran ay tahay marka
iyadoo halkaas isku af la yahay oo Soomaaliya la isku yahaban iska dul qaadnay oo dabaabaad iyo wax walba wadatay shandad lacag lagu soo qaado iyo dawladda la dhaxmariyo Soomaaliland kuma burburayso maxaad ka wadaafeen shandad lacag lagu soo qaado muxuu dawladda la dhaxmariyo Soomaaliland ku burburmayso waxaan ugu waa ahdaafta qadar weey annagu maanta waxaanu la hadlaynaa waa qadar dunidana waxaanu u sheegaynaa in cadow Soomaaliland tahay hogaamiyayaashii hore qaranka soo maray madaxweynayaasha noqdayna cadaawadeeda ay fahansanayeen marka waxa weeyaan waa cadowtinimadii guunka ahayd ee Soomaaliland u hayeen ay maanta isleeyin fursad u hela dunidana u tusa inay waxa weeyaan midnimo u heelayihiin oo lacag ay ku bedeli karaan waa aqliga qadar yaala weey marka ummaddu ha toosto koraha loo qaada indhaha dunida aynu tusno waxaynu nahay aad iyo aad baad mahadsantii shirkadda Telesom waxay qiimo dhimis ballaaran kugu samaysay internetka mobilka internetka bilaayan xadidin waxa lagu sameeyay qiimo dhimis 25% hadda waxaad ku helaysaa $15 oo kaliya shirkadda Telesom waxay sidoo kale 20% qiimo dhimis kugu samaysay internetka iyo ku hadalkii bilaha ah ee wada socday hadda waxa laga dhigay oo kaliya $20 si aad ugu shubato internetka aan xadidin waxaad ka wada helaysaa dhamaantood oo aad doorataa xidhmo unlimited ah macmiil ka faa'iideyso qiimo dhimista ballaaran ee lagu sameeyay